Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta maanta waxaan idiin haynaa filim khiyaali saynis ah oo lagu magacaabo Fortress daawasho wacan iskala taxadara. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa mustaqbalka Canada halkaas oo ay dawladdu mamnuucday dhalashada laba ilmood si loo xakameeyo dadka qofna looma ogola inuu dhalo hal cunug wax ka badan xitaa haddii uu ka dhinto cunugooda koowaad. Halkan waa xuduudka Canada iyo Mareykanka si weyn ayaa loo ilaalinayaa. Qof kasta waxaa laga codsanayaa inuu codsigiisa u qaado xafiiska kormeerka. Askari hore John Henry Brink iyo xaaskiisa Karen Brink ayaa u dhow in la baaro. Lamaanaha ayaa muuqda qaar ka walaacsan baaritaanka. Karen waxay xidhan tahay jaakad ka hortagaysa in la ogaado inay leedahay uur. Lamaanaha waxay damacsan yihiin inay u safraan gobolka Vancouver si ay cunugooda labaad u dhalaan kadib cunugeeda koowaad si aanay cunug dambe u qaadin. Dowladda ayaa ka xidhay ilmagaleenka. Si kastaba ay ahaato, Karen waxay nasiib u yeelatay inay qaado cunugeeda labaad. Markii ay soo gaadheen xarunta kormeerka, askari ayaa ku amray inay kasoo degaan gaadhiga iyagoo wata alaabtooda halka uu askariga hubinayay shandadeeda. Karen waxay aragtay gabadh xamilo ah oo la qabtay. Waxa ay u socotaa dhanka mishiinka. Nasiib wanaag, jaakadii ayaa u shaqaysay. Lamaanuhu hadda si nabad ah ayay ku safri karaan. Laakiin mid ka mid ah askartii ayaa arkay inay qodato jaakada xamilada qarisa. Alarmka ayuu shiday. Kadib John iyo saaxiibadiisa iska caabin ayay sameeyeen. Waxa ay ka soo gudbeen xuduudka Mareykanka. John oo askarta iska ilaalinaya ayaa ku amray inay baxdo kaligeed si uu cunugooda labaad u badbaado. Hadda waxaynu aragnaa John iyo maxaabiis kale oo gaari ku jira. Waxaana loo wadaa xabsiga weyn ee Fortress. Xabsigan waa xabsi ammaankiisu aad u sareeyo waxaana uu ku yaalaa bartamaha saxaraha. Xabsiga in laga baxsado aad ay u adag tahay. Ugu dambeyn xabsiga ayay gudaha u galeen waana la wada qaawiyay. Cod gadaaleed ayaa soo dhaweynaya maxaabiista isagoo isbaraya inuu yahay madaxa xabsiga Director Boy. Maxaabiista ayaa la keenay qol qof kasta lagu rakibayo nidaam system oo jaasuusaya iyadoo aaladda waxa la dhigay gudaha calooshooda iyadoo xanuujinaysa qofkii jabiyay sharciga. Madaxa xabsiga Boy wuxuu maxaabiista ku wargelinayaa xariiqa jaalaha dhulka maxbuuskii ka gudba inuu la kulmayo xanuun aad u daran dhanka caloosha. Sidoo kale xariiqda cas maxbuuskii ka gudba inuu isna dhimanayo. Mid ka mid ah maxaabiistii ayaa walaac muujiyay wuxuuna ka gudbay khadka cas. Wax yar kadib dhulka ayuu ku dhacay isagoo dhaafay khadka cas wuxuuna dareemay xanuun aad u daran waxaana weynaatay caloosha. Maxaabiistii kale waxaa loo qaaday qaybaha ugu hooseeya xabsiga. John iyo saaxiibkiisa xabsiga Nino Gomez ayaa lagu sii daayay dabaqa waxaana hagaya qalab lagu magacaabo Z10 kaas oo ugu dambeyn geeyay qol ciriiri ah. Maxbuuskan magaciisu waa Stiggs wuxuuna u qayla dhaaminayaa aaladda Z10 isagoo ka cabanaya inuu qolku markii hore ciriiri ku ahaa. Taas beddelkeeda Z10 ayaa u hanjabaysa inay xanuujin doonto haddaan u istaajin. Aaladda Z10 waxay leedahay laser jarjaraya maxaabiista markay dibadda u baxaan iyagoon loo baahnayn. Maalinkii xigay maxaabiista ayaa laga dhigay inay ka shaqeeyaan dhismaha dhulka hoostiisa. Maxbuus lagu magacaabo Maddox ayaa firxumeeyay Nino. John ayaa u soo gurmaday oo la dagaalamay Maddox. Z10 ayaa timid waxaana joojisay rabshadii. Kadib saddexdooda waxaa lagu xidhay unugyo yaryar oo laser ah waxaana la weydiiyay cidda saddexdooda dagaalka bilowday. Nino waxa uu ka baqanayaa Maddox si uu u badbaado. Nino saaxiibkiisa John ayaa been sheegay isagoo cambaareeyay inuu dagaal bilaabay Nino. Kadib John waxa uu yeedhay madaxa xabsiga Boy halka Ibrahim uu jarayo garhka Boy waxa uu tusay xaaskiisa oo meydhanaysa waxaana uu sheegay inay xaaskiisu tahay maxbuus isaga oo kale ah. Ibrahim ayaa u sheegay in dabaqa A iyo B ay yihiin dabaqa qaybta dumarka halkaas oo laga yaabo inay joogto Karen. Kadib waxa inoo muuqda Karen oo ka taxadaraysa saaxiibadeeda xabsiga oo xamilo ah. Markii ay caloosheeda bilowday inay xanuunto, laba ilaalo ayaa kaxaysay. Qaybta ragga Maddox ayaa dagaal kula jira John. Ragga ayaa galaya dagaal xoog badan iyadoo qof walba xarunta ku sugan daawanayo. Madaxa xarunta Boy Karen ayaa arkaysa saaxiibkeeda hoos ku dagaalamaya waana yaabtay. Halka uu John baryayo Maddox beddelkii uu tuuri lahaa waa uu caawiyay. Boy waxa uu go'aansaday inuu dilo Maddox isagoo adeegsanaya aaladda laserka isagoo dalooliya calooshiisa. John waxa uu helay aaladda sirdoonka wuxuuna u dhiibay Nino si qarsoodi ah intaanay qaadanin kormeerku. Waxa ay siisay alcohol waxaana ka dhigtay mid maqan. Waxa ay isticmaalaysaa aaladda Z10 oo ay ku ogaanayso riyada John. Waxay aragtay cunug yar oo ku xaniban good. Waxa ay soo saartay iyadoo gacanta qabanaysa wuxuuna ku noqday John-kii saxda ahaa oo maskaxdiisa qaba. Asxaabtiisa ay qolka wadaagaan way ku farxeen soo laabashada John. John waxa uu Ibrahim ka dalbaday inuu ka baxsado xabsiga laakiin Ibrahim waa uu ka shaqeeyay. Ibrahim wuu aqbalay laakiin Karen waxa uu uga warramay inuu John soo fiicnaanayo.
farxad darteed waxa ay dhaaftay dayaxa maadaama uu shaqeeyo qorshaheeda. Hadda waxay aaminsan tahay inay ka saari karto xabsiga, waxaana bilowday qorshaheeda xiga. Kadib John wuxuu D-Day ka qaaday aaladii ku jirtay caloosha Matrix. Saaxiibkood D-Day waxa uu ahaa mid ku wanaagsan kombiyuutarka intuusan xabsiga imaanin. Wuxuu u soo bandhigay inuu qalabka qayb ka qaato si uu u soo baadho. D-Day waxa uu kiciyay programkii si uu u ogaado dhismaha xabsiga. Waxay ogaadeen inay jirto waddo laga baxsado goobta dhismaha. Maalinkii xigay Ibrahim booskiisii ayuu ku soo celiyay, halka uu Karan ka dalbanayo inay isaga aroosto. Wuxuuna ku andacoonaya in ilmaha caloosheeda ku jira uu la dhaqmi doono sida ilmihiisa oo kale. Halka D-Day uu soo ogaaday mashiinta Joshua sida uu u shaqeynayo, wuxuuna u sheegay inuu yahay sida birqaadada kale ayna awoodaan inay iska soo saaraan iyagoo isticmaalaya qalab bir ah. Isku daygoodii ay sameeyeen wuu shaqeeyay, wayna ku guuleysteen. maalinkii xigay Boyo waxa uu ka lahay si uu eega muuqaalka kaamirada amniga. Wuxuu arkay Karan oo xadaysa lansiga iyo Ibrahim oo meeshiisii ku soo celinaya. Aad ayuu u xanaaqay markuu arkay in la khiyaamayo. Sir 10 ayaa ku wargelisay in waxaan amar la'aantiisa u dhacayaan, halka maxaabiistu hirgelinayaan in ay qorshooda. Aaladii waxa ay ku dhajiyeen tuumbo bir ah oo ku taala aaga dhismaha weyn. Waxaanay bilaabeen rabshadii si ay Sir 10 u timaado. Waxaanay bilowday inay xanuujiso iyadoo furaysa tuumbo bir ah. laakiin Boy ayaa ku soo daayay tuumbada gaas aad u kulul. Waxaanu howlgeliyay askartiisa. Stiigis ayaa aad u argagaxay. Waxaanu isku dayay inuu mar kale galo xarunta xabsiga, laakiin askarta Boy ayaa halkaa ku dilay. halka kale Ibrahim iyo Karan waxa ay rabeen inay howlgeliyaan qorshahooda. Boy ayaa helay wuxuuna dilay Ibrahim isagoo Karan ku dalbanaya askartiisa si ilmaheeda looga dhigo bilaadan horumarsan sida isagoo kale. Dhinaca kale John ayaa ku guuleystay inuu dilo mid kamid ah askarta Boy, wuxuuna ahaa bilaadan horumarsan. Wuxuuna gacanta ku dhigay hub horumarsan isagoo adeegsanaya. Wuxuuna gudaha u galay xarunta isagoo qof kasta xarunta jooga ku farxay. waxaynu aragnaa John iyo Nino oo raba inay soo badbaadiyaan Karan, wayna ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan. saddexdooda waxay soo qaateen gaari qufulan, wayna ka soo baxseen xabsiga. Waxay soo dhaafeen xuduudka, waxaanay soo aadeen Mexico. Karan hadda foosha ayaa haysa. Gaariga xabsiga Sir 10 kantarooleyso ayaa dilay Nino. John ayaa ku guuleystay inuu qarxiyo gaariga. Nasiib wanaag way ka badbaadeen qaraxa. Filimku waxa uu ku dhamaanayaa iyagoo ilmahooda haya. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan subscribe saar, like-na nagu dhiirigeli, nagu soo biir ku xidhno